cuqaasha odayaasha dhalinyarada iyo waxgaradka kale ee beelweynta reer Sheekhadoon oo maanta iskugu yimid magaalada Hargeysa ayaa waxa ay isla qaateen in murashax Ibraahin Cabdi Xuseen oo noqon doona murashax u matali doona golaha wakiilada Soomaaliland ee ugu soo socota beelweynta reer Sheekhadoon odayaashii iyo dhalinyaradii iyo waxgaradkii kale halkaasi ka hadlay oo aad u taageeray garyaqaan Ibraahin Cabdi Xuseen oo noqon doona murashaxa ku matali doona beelweynta waxa ay yiraahdeen hadaladoodii waxaanu maanta halka shaacinaynaa waanu go'aan ku qaadanay maadaama aanu dajiif aqalkii aan ahay kuna hadlayo uqaasha magacooda magaca reerka waxaanu qaadanay Sheekh Ibraahin Cabdi Xuseen inuu noqdo golaha wakiilada ee soo socda dhammaan Axmed Cabdalle waxaan u sheegaynaa inay arrintaa Sheekh Axmed ay soo xuleen go'aanadooda ay qaateen ay fuliyaan aynu soo saarno waana xildhibaan reer Axmed Cabdalle xulitaanka reer Sheekhadoon baa leh xildhibaanimada reer Axmed Cabdalle leh gudaha iyo dibadba aynu u diyaar garowno codka ha la siiyo haween dhalinyaro dumar cid kasta oo qaangaadho arrintaa ay qusayso biyaha reerkii ha taageerto insha Allah wuu la guuleysanayaa oqaashi reer Sheekhadoon waxaan halkan ka cadeynaa inuu yahay sharaxa golaha wakiilada doorashada soo socota haddii Ilaahay na gaadhsiiyo ta kale halkaa uu reerku wada maray ayaanu ku kalsoonahay halkaasaan annaguna marayna degmeynu leenahay leeyahay degmada Farweyne codkeena u badan baa yaala 31 oo cod baa yaalay doorashadii madaxweynaha ee imika Musabbixi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ku soo baxay 31 ka kuna cod hadaynu raayno majority qaadano 15 kuna cod wuxuu noqonayaa xildhibaankeenu xildhibaanka ugu codka badan leh xataa haddii 50% haddii xitaa 30% ama 20% ay lumaan 10 kuna cod buu ku soo bixi karayaa waxaa leeyahay tabliiq siyaasi aynu noqono horta fariinta maanta aynu qaadno islaanta miyigi joogtay magaalada jooga baynu gaarsiino waxay isku raacday in Ibraahin arrintaasi lagu daayo waxa aynu isla garanay oo maanta majority reerku halkan maanta u fadhiya kulku dhinac walba wax ka eegay in maanta xildhibaan Ibraahin Cabdi Xuseen maanta kursiga sanadku inaga xigo aynu hadii Ilaahay oo dhan ayaynu u garanay waa isla qaadanay insha Allah kariim waxaan ka rajaynaynaa inuu fuulo baarlamaanka reer Sheekhadoon wixii waa soo afjaray waxa la isla gartay Ibraahin Cabdi Xuseen maanta musharaxa golaha baarlamaanka in loo daayo oo lagu taageero ayaa la isku raacay reer Sheekhadoon madashan la isku yimid reer Sheekhadoon beesha reer Sheekhadoon Axmed ay ku dhan tahay waxa la isku raacay Ibraahin Cabdi Xuseen in musharaxa reerka yahay dhammaan taas la isku raacay dadweynaha beesha reer Sheekhadoon Axmed ee shirkan ka soo qayb galay shirkaas muddo dheer soo socday una socday musharaxa reerka uu soo saarayo uu dooranayo golaha baarlamaanka waxaan isku raacnay Ibraahin Cabdi Xuseen inuu noqdo musharaxa golaha baarlamaanka taanu nahay beelweynta reer Sheekhadoon Axmed shirkan qiimaha leh maanta waxaanu isugu nimid inaanu ku ansixino Ibraahin Cabdi Xuseen oo ah xildhibaan golaha baarlamaanka taasoo reerku isku raacsan yihiin gudaha dibadba sidaa darteed xildhibaanka waxaan leenahay si nabad qabta caafimaad qabta oo wanaagsan kursiga Allah ku gaarsiiyo inteena kale ee u taagan taageerayaasha abaabulka haddii la ka qaybgalka cod bixinta ku rafaadideeda wixii oo dhan waxaan leeyahay ka khayr magaca Axmed Cabdalle ee balaaran siiba Sheekhadoon weyne ayaynu halkan maanta iskugu nimid waxa isku keenkeenina waxa weeyi
إبراهيم عبد الحسين هدي لها يلاهو إلهي وحين كره شيءنا وما تاين نسكر عنا أي تاي كلها بالربانكا إن إبراهيم هدي لها يلاهو وكسب بحه وكان نقضوا هدي لها يلاهو حركة وقال سنك قالوا ما تريش يختون وبدلنا واش يختون ويلي وكوريوه أدي نوم غير مجد لما تاني إن إبراهيم كنت قالنا معها مجاعك وين وحولبا وحوين المجاعك كنت قالنا إن ضدك قرب قال له shirkan qiimaha iyo qayaale ee soo yimaadeen beesha reer Sheekh Doon Axmed ay kula soo bandhigayaan musharaxooda golaha baarlamaanka iskula raaceen inay musharax ka dhigtaan Ibrahim Cabdi Xuseen oo reer Sheekh Doon isku raacay dan walba markuu ka eegay walaala tagi doonaan reerkoodii ballaadhnaa ee Axmed Cabdille oo ka codsanay inay u tixgeliyaan xildhibaankayga aanu soo dhignay reer Sheekh Doon Axmed isku raacay waxaan leenahay walaalahay Axmed Cabdille hal u tixgeliyaan xildhibaanka Ibrahim Cabdi Xuseen markaan dhinacyo badan ka eegnay oo aan soo xulanay waxaan doonaynaa in sidaa loogu tixgeliyo Axmed Cabdille loo tixgeliyaan sidaasaanu ku qaadanay markaan dhinacyo badan ka eegnay Axmed Cabdille sidaasaanu la tagaynaa shirkan way isugu timid isbahaysiga beelaha Sheekh Doon Axmed ujeedadiisuna ahayd in la soo saaro cidda uga qayb galaysa tartanka musharaxnimada baarlamaanka markii dhinac walba laga eegay markii aqoon laga eegay markii waayo aragnimo laga eegay markii deganaansho laga eegay markii laga eegay yaa dadka isku wadi kara waxay dhammaan isku raacday inuu yahay Ibrahim Cabdi Xuseen oo noqdo ninka beelweynta Sheekh Doon Axmed baarlamaanka u tagay dhammaantood taageersan anigoo ku hadlaya magaca guud ee Sheekh Doon Axmed magaca guud ee urweynaha damal Sheekh Doon ee Sheekh Doon Axmed leeyahay anigoo ku hadlaya magaca xubin kasta oo halkan fadhida oo ah mudantii Sheekh Doon Axmed waxa aanu halkan ka diranaa wargelin aanu gaarsiinno suldaanka guud ee beelweynta Suweerawal Suldaan Xasan Suldaan Cabdullaahi Suldaan Diiriye waxa kaloo aan wargelin halkan aan uga diranaa dhammaanba cuqaasha reer Axmed Cabdille iyo kuwa reer Sheekh Doon inta aan inala joogin xanuunsanaysa Allah caafiyo iyo dhammaanba waxa aan fariintan aan doonay inay gaadho gudoomiyaha guud ee beelweynta Axmed Cabdille Faysal Faarax Maxamed dhammaantoodba fariintaan diranaa waxa weeye aniga oo ku hadlaya afkar Sheekh Doon Axmed in maanta laga bilaabo musharaxii golaha baarlamaanka ee reer Sheekh Doon Axmed u tartamayay uu yahay Ibrahim Cabdi Xuseen inay naga gudoomaan nagu garab galaan nala dhisaan isla markaana la diyaariyo musharaxii golaha deegaanka ee reer Axmed Cabdille iyaguna soo xulayeen isticmaalna gudoomiyaha beelweynta reer Axmed Cabdille Faysal Faarax Maxamed ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aanka ay qaateen beelweynta reer Sheekh Doon ee murashaxnimada garyaqaan Ibrahim Cabdi Xuseen oo la isku raacay shirkaasi maanta ka dhacay magaalada Hargeysa inuu noqdo murashaxa u matali doona beesha ee golaha wakiilada ee soo socota doorashada dhawaanta la filayo iyadoo oo gudoomiye Faysal Faarax Maxamed oo ballan qaaday inuu heel iyo hooba la garab taagan yahay isla markaasina suldaanka guud iyo guud ahaanba dhaqanku ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo soo saari lahaa murashax garyaqaan Ibrahim Cabdi Xuseen